waliba wuxuu leeyahay sunno kaba oo qurxiya waxay leedahay markaas sadaqadan sunnahay waqti kuma koobna iyadu waa sanadkoo dhanba aynu akhrina markaas nusuusta iyo daliilada ina jeclaysiinaya iyo inay dadkoo dhan iyadu u furan tahay oo qof qaniyahun kuma xidhna sadaqada sunnahay ka miskiinkee dawarsanayaa bixin kara si uu lacag u helo ajrina u helo dabcan ilaa wixii waa miftaaxe dad badan baa waxay u qaateen inaan iyaga sadaqaba lagu lahayn maadaamuu faqiir yahay faqiirkay tahayba inuu bixiyo isaguu sii bilaabo ilaahay baa ina amray oo nebiguu soo faray calayhi salaatu wasalaam oo waxau uhi qul licibaadiya aladiina aamanuu yuqiimuu الصalaata wayunfiquu mima rasaqnaahum sira wacalaaniya min qabli an yaأtiya yowm laa baycu fiihi walaa khilaal nebi moxamedoo waxaad u sheegtaa addoommahayga inay salaadana oogaan sadaqadana bixiyaan si muuqata iyo si qarsoonba u bixiyaan intaanu qiyaamuhu iman waa maalin aanu jirin iib iyo saaxiibtinimo toona marka cibaadadani iminka aynu ka hadlaynaa waa cibaada fi lcadiya waa cibaadooyinka noocyo kala duwan bay noqdaane waa cibaadadii deeqda iyo deeqsinimadii iyo waxbixinta mar kale wuxuu uhi waanfiquu fii sabiili اllaah meelaha khayrka iyo jihaadka wax ku bixiya mar kale wuxuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu mima rasaqnaak dadkii a shahaadanaya islaamka ahaayoo waxaanu idin siinay wax ka bixiya mar kale waxau uhi yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min dayibaati maa kasabtum dadkii mu'miniintaa buu ilaahay u yeedhoo wuxuu idhi waxa shaqaysateen wax ka bixiya mar kale waxau ihi fattaquu llaha ma stadactum ilaahay ka cabsada intaa karaysaa wasmacuu wa adiicuu maqla waxaa laydiin sheegayo raaca wa anfiquu khayran lianfusikum wax bixiya naftiinnay dan u tahay khayr u tahay waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun dadka laga ilaaliyey bakhaylnimada naftooda ilaahay ka ilaaliya way liibaaneen nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo sadaqada ka warramaya waxa uu tilmaamay qof waliba qiyaamaha intuu ilaahay ishortaaga inuu ilaahay la hadli doono iyadoo cid turjumaani aanay u dhaxaynin midigtuu eegayaa wuxuu arkayaa keliya camalku horumariyey meeshii tol iyo xidhitoona ma joogo bidixduu eegayaa wuxuu arkayaa wixii camal uu horumariyey oo keliya wuxuu eegayaa wejigiisaasoo wuxuu arkayaa naarti oo soo bu'aysa fattaquu naara walow bishiqi tamra naarta wax isaga dhiga buu nebigu uhi saasay idiin soo waajahaysaaye xabba timira jeexeedna ha ahaato inaad xoolo badan bixisaa shardi maaha fadligii sadaqadaynuu gallay raqamka koowaad tudfi'u gadab allaahi subxaanah ilaahay cadhadiisay bakhtiisaa sida biyuhu dabka u bakhtiyaan oo kale inna sadaqata siri tudfi'u gadab arab tabaaraka wa tacaala sadaqada sirtaahay waxay qarisaa ama bakhtiisaa cadhada ilaahay subxaana wa tacaala oo ilaahay baa ku farxo oo cadhadu ay ka ba'aysa tamxu lkhati'a gefkana way tirtirtaa sadaqadu sunnahay ama sadaqaba guud ahaan wasadaqatu tudfiu lkhati'ata kamaa yudfiu lmaau annaara siday dabka biyuhu u bakhtiyaan ayaa sadaqadana ilaahay dembiga ugu bakhtiya ilaan dembigu waa naar holcaysa faa'iidada saddexaad waxa weeye wiqaayatun min annaar naarta ilaahay kaga xijaabaa sida aynu horeba u soo aragnay walow bishiqi tamra carshiga ilaahay ama aan idhaahnay harka ilaahay baa lagu helaa maalinta qiyaamaha oo maalin ay dadkuba wada kareedan yihiin ay wada kulul yihiin tii qorrax ahaydna la soo dhoweeyey oo miil qadarkii la soo jirsiiyey waxa qofku uu hadhsanayo ee qabowga uu ka helayaa waa sadaqada kullu mri'in fii dilli sadaqatii xataa yuqdaa bayna annaas qof waliba maalinta qiyaamaha sadaqadiisu hadhsanayaa buu nebigu yidhi markaa kii sadaqadiisu ay badan tahay hadhkiisu wuu wen yahay kii sadaqadiisu ay yar tahay hadhkiisu waa hadhdacaar ama wuu yar yahay nin isaguna sadaqaystay baa ka mid ahaa sadaqo bixiyey ayaa ka mid ahaa kuwii ilaahay u hadhaynayay maalinta qiyaamaha
ilaa ay midigto bidixdu ogaan weyda waxay midigtu bixinaysa faa'iidooyinka sadaqada waxaa ka mida dawaa'un lilamraad albadaniya almucsacsiyah cudurrada jidhkee adkaada sida ruuxda u dawaysa cudurrada jidhkee adkaadana waa lagu daaweeyaa sadaqada nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan sugan wuxuu ku uhi daawuu mardaakum bisadaqa dadkiinna bukaanka ah ku daweeya sadaqada qisooyin badan baa jiro hadda aynaan wakhti u hayninoo dadku intay dhakhtarka ka quusteen sadaqada ay ku daweeyeen naftooda iyo ehelkooda waxaa ka mid ahaa cabdilaahi bnu mubaarak taabicigii la odhan jiray ee jaliilka ahaa ayaa nin baa u yimi warniyow lugtaasaa waxa iga soo baxay buu hi dhullax weyn ama fin weyn oo malax iyo dhiig leh cid alla cid daawaysana ma hayo oo dhakhtar waliba uu ka soo quustay bal orodoo ceel biyo ah qod buudhi markay biyuhu ka soo butaacaan waxaan rajaynayaa inuu dhiigguna istaago iyo waxaa ka shuuqaya meesha ay labadu isweydaartaan fafacala arajulu fabari'a biidni illaah intuu ceelkii biyaha qodaybaa markay biyihii soo butaaceen buu nabarkiina aamusay waa awliyada ilaahay karaabooyin bay leeyihinoo asraar baa ilaahay u muujiya waa qiso sugan ood ka akhriyi karaysa saxiixu targhiib waxa lixaada faa'iidooyinkeeda ka mida cudurrada qalbigana way dawaysaa uu ka mid yahay qalbiga oo qomboba ama qallala ama qallafa midkaa doonto dheh waana cudur xun oo gacantanoo gaangari ku qaado ku qallafta waxa ka xun qalbiga fa inna abcada quluubi اnnaasi lirabbina araxiimi qalbun qaas qalbiga xubinka ugu fog ilaahay aada uga foge waa qalbiga qalalay nebigu wuxu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam idaa arad talyiina qalbika faadcim اlmiskiina wamsax calىa ra'si alyatiim markaad doonaysa qalbiga inaad dawayso ama qoyso dabciso miskiinkana waxsii agoonkana madaxa u masax balaayooyin badan baa ilaahay sadaqada uu ku difaacaa oo kala noocyo badan daliilna waa leedahay waxaa ka mida faa'iidooyinkeeda samafalkii la doonaya qiimaha badnaa baynu ku gaadhaynaa sadaqada haddaynu bixinno samafalku waa noocyo darajooyinka jannada aad ku helayso ka ugu sarreeya ama kuwa ugu sarreeya waxaad ku helaysaa oo qofku samafalo weyn uu ku noqonayaa markuu samafalka bixiyo alla wuxuu uhi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibbuun samafalkii asalkaa gaadhi maysaan ilaa sadaqada aa ka bixisaan waxaad jeceshihiin faa'iidada sagaalaad waxa weeye ducada malaa'igtaad helaysa malaa'igta qiimaha badan ducadooda mustajaabo oo ilaahay aqbalayo waxaa lagu helaa sadaqa bixinta xadiidkii saxiixaynka ku sugnaa bukhaari iyo muslim wuxuu nebigu ku yidhi maalin walba laba malag baa soo degoo midina wuxuu la taagan yahay duco midina habaar